Professor Cabdi Cali Jaamac ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal ka soo yeedhay gudoomiye ku-xigeenka ku-meel gaadhka ee xisbul xaakimka talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo sheegaya inaanay gudida ururadu u qarnaqi karin marka xubin ka tirsan xisbiga lagu gafo xuquuqdeeda waxa uu yiri maanta waxaan doonayaa halkan inaan ka sheego wax weeyaan waxaad dhageysateen kulli ama daawateen iyadoo qoladii maamulka xisbiga joogtay gaar ahaan magaranaysaa ninka imika gudoomiyaha ku-meel gaadhka ku-xigeenka gudoomiyaha ku-meel gaadhka uu yiri ee labaad uu yiri gudiga diiwaangelinta awoodba uma laha ama mandate-kooda kuma jirto inay u garnaqaan xubin ka mid ah xisbiga iyo xisbiga marka wuxuu yidhi wuxuu bay u xil saaran yihiin inay xisbiyadu markay isqabtaan ama xisbiyadu matalan garab ka mid ah ay garabba u kala jabaan ama hoggaanka la isku qabsado hadal macnihiisu caynkaa yahay buu yidhi markaasun bay soo geli karaan buu yidhi guddiga magaranaysa diiwaangelinta laakiin runtii waxaan doonayaa markaanu arrintii sharci ahaan u eegnay sharci yaqaano badanay isla eegeenee laga dib loo eegay waxa ay noqotay arrinkaa uu yidhi wuxuu noqday arrin aan waxba ka jirin guddigaa diiwaangelintuna iyadaa qaadaysa wax allo wixii la xidhiidha xisbiyada iyo maxaan ku idhahdaa haddii saa uu sheegay garabba loo kala jabo iyo haddii xubini xuquuqdeeda lagu xadgudbo oo dee loo joojin waayo sida annaga imika nagu dhacdo kale haddii laguba joojin waayo oo go'aanna layska soo saaro oo xisbigiiba lagaa saaro oo iyadana lagu aragba xagee tegaysa marka waa inaad ay jirto meel loo dacwotayaa kolleyba dee xataa haddii maxaan ku dhahdaa iyagu xataa imika waxaanu sheegaynaa badda inay maxaan ku dhahdaa shaqadooda tahay mar walba qofku laakiin wuu dacwoon karaa dee wuxuu dacwoon karaa hay'adaha garsoorka taasina way jirtaa mar walba way furan tahay laakiin imika sharci ahaan guddigani way ka garnaqi kartaa haddii xubini ka ashkatooto in xuquuqdeedii meel lagaga dhacay marka arrinkaa uu yidhi ma aha wax ku salaysan sharciga taasaan doonayaa inaan runtii halkan maaragtay maanta ka uga sheego maxaa ku kalifay inay sidaan sameeyaan haddaynu ka jawaabno waxa weeyaan waxaa ogeydeen markii hore markan dacwadda gudbiyey anigu aan gudbiyey guddiga diiwaangelintu horta waan u mahadnaqayaa halkan waan uga mahadnaqayaa waayo guddiga diiwaangelintu runtii inagoo og maanta xaaladda ama xaalkay ku sugan yihiin institutionadeennu iyo sida magaranaysaa ay maanta magaranaysaa u dayacan yihiin runtii haddana waxay sameeyeen inay warqad u qoraan xisbigii oo weliba xisbi xaakimkii ah oo yidhaahdaan ka soo jawaaba dacwadda uu idinka soo gudbiyey maxaan ku dhahdaa xubintaa ka tirsan golaha dhexe ma garanaysaa marka halkii laga sugayey inay ka soo jawaabaan waad ogeydeen waxay yidhaahdeen annagu marka waxaanu ku dacweyneenu ma garanaysaa ku ashkataynay waxay ahayd weliba gaar ahaan anigu dacwaddaydii waxay ahayd haddii beedanka leeyahay markay xisbiga naga saarayeen ee warqaddan ay nagaga saareen intaanay qorin ka hor dee sharcigu wuxuu sheegaya in qofka digniin la siiyo oo loo yeedho oo magaranaysaa la ganaaxo oo waxaasoo dhan buu sheegaya marka annagu waxaan ku andacoonaynay nalooma yeedhin maxaan ku dhahdaa digniinna lama siin ganaaxiyo waxaa iska daa waxaan ku war hello warqaddan eriga ah weliba warqadda eriga xataa koobina looma keenine warbaahintoo la cararaysa ayaan iga keeno marka taasi dee waxay sheegaysaa waxaan ka ashkatoonaynaa waxa horta wax dee maaha waxaan ka ashkatoonaynaa maaha wax qircaadi oo wax magaranaysaa dee haddaynu iminka qaban weyno runtii dee xisbiyada inaga baabiinaya inta dee qof ku sanifo ama koox yar ku sanifto inay dee yidhahdaan waan ka saaray xisbiga qof yidhahdaan waxaas dee nama dhaqayaan Professor Cabdi Cali Jaamac ayaa sheegay inuu ka qayb galay shirweynaha xisbiga kulmiye lagu qabanayo magaalada Boorama maadaama oo aanu ilaa hadda u arkayn sifaha xubnaha golaha dhexe looga saaray ay yihiin qaar sharciyada xisbiga kulmiye baalmarsan waxaana uu yiri runtii dee waxa weeyaan sharcigu dee haddii loo soo noqdo oo sida sharcigaa loo soo noqdana dee waxa weeye meeshii waxaanu nahay annagu weli waxaanu nahay xubnihii golaha dhexaanu nahay markaa shirka waan ka qayb gelaynaa
ya waa haddii sharciga loo soo noqdo haddii sharciga laga hor keeno hay'adihii sharciga ilaalinayna ya oo la adeegsadana dee waxay noqonaysaa iyaduna dee khalad kale noqonaysaa oo lagu sii biiriyey marka annagana dee noo suuro geli mayso inaynu ka qayb gallo haddii dee hay'adaha dee loo isticmaalo in laga joojiyo maanta dee waa lagu aaminay hay'adaha inay xukumaan oo ay maamulaan waa lagu aaminay hadday si khaldan u isticmaalaan dee waa ammaano ay khiyaameeyeen bay noqonaysaa iyagoo og inay sharci darro tahay marka waxay isku sii kordhinayaan uun halgankan aynu ku jirnay aynu xaqa ku caddaynayno aynu dowladnimada iyo sharciga dadka aynu maxaan ku dhahaa ku xasuusinayno dadku way yaqaanaan in xasuusin bay u baahan yihiin marka leen dadkan wax barayna waxaan u jeednaa dadkan wax xasuusinayna fadakir baa jirta moogti maaha macnaheedu leeyahay dadku waxba garamayaan laakiin fadakir baa meesha jirta marka dadaalkan aynu dadka ku xasuusinayno dowladnimada iyo sharciga kaasaa sii xoogaysanaya oo sidan iminkaba aynu maxaan ku dhahdaa ay u khalkhaleen ay mar been u sheegeen haddana kolba gidaar isugu qaadayaan sidaasoo kale mar walba waxaa inagu filan inaynu xaqa caddayno dabeedna xaqa marka lagu caddeeyana ay kabashkabashleeyaan oo dadna dadku arkaan sida ay uga leexdeen dariiqii dowladnimada dariiqii xaqaha dariiqii magaranaysaa naasir cabdilqaadir cabdiwahaab naasir talasame badcas TV gudaha magaalada Hargeysa.